Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalayaal, meel walbaad joogtaan baa adman idin salaamayaa. Walaalayaal, maanta waxaan idin wadaa oo aan ka hadlayaa waxay tahay 10 caado ama shay oo maaragtay noloshaada wax ka bedelaya haddii aad samaysid ama aad ku dhaqantid oo noloshaada yacni ku sameynaya improvement ama wax ka bedelaya oo maaragtay sidii ahayd iska wax ka bedelmayaan. marka insha Allah biidnillah aad iyo aad bay u fiican tahay yacni qofku inuu mar walbaba uu noloshiisa ma aragtay wax ka fiiriyo siduu mar walbaba ma aragtay self improvement uu naftiisa maaragtay ugu sameyn lahaa ama naftiisa u caawin lahaa suu marba wax cusub ula yimaado oo naftiisa caawinaysa ama noloshiisa wax u kordhinaysa. marka walaalayaal, maanta waxaan ka hadlaynaa 10 shay. midka ugu horeysa aan idin galo midka ugu horeysa waxa weeye yacni shayga ugu horeysa ama caadada ugu horeysa oo nafteenu aynu ma aragtay aan barno haddaad horey u yacni aad u ahayd noocaasna dee waa alxamdulilah rabbil caalamiin. haddii aad hadda rabtid inaad ku kordhiso caadadaasna kas waxaa laga yaabaa intaneeto inaad adigu qaar ka haysatid qaarna aadan ka haysanin. marka haddii horey ay kugu jirtayna waa alxamdulilah. haddii aad hadda u baahan tahay inaad ku kordhisidna ka faa'iidayso insha Allah. marka kan ugu horeysa waxay tahay inaad noqotid qof ma aragtay organize ah. isbuucii yacni waa inaad plan samaysatid. plankaas wuxuu kaa caawinayaa inuu kuu ma aragtay shay walbaba wax walba aad wiigaa samayn lahayd yacni kama lulumayaan. meel baad ku qoranaysaa, planner baad samaysanaysaa, buug yar. buugaasaad wax walba ku qoranaysaa wiiga waxaad samayn lahayd maalin walba. marka qofku aad bay u fiican tahay inuu maaragtay uu qof balaan leh uu noqdo. tan labaad waxay tahay inuu qofku goor hore kaco. inuu kaco qofka. dad waxaa jira ma aragtay intay kacaan subaxii wax qabsadaan iskaga yara noqdo oo isdhahaya okay hadda waxba uma baahnid. hadday aadan waxba aadan ahayn dadka noocyada ma aragtay wax qabanaya ee hawl u oolin haddaadan ahayn yacni wax yar waad iska yara nasan kartaa. laakiin waxay ku fiican tahay inaad kacdid goor hore aad kacdid oo aad waxaaga qabsatid. waayo haddaad goor hore aad kacdid wax badan baa kuu qabsoomaya meesha ay haddaad hurdada ku dahdid ay adduunyadii oo dhan ku dhaafayso. adduunyadii dhan baa ku dhaafaysa. waxaa laga yaabaa meelo ballaman aad lahaan lahayd inaad balantii maaragtay lagaa xidho ofiskii dhakhtar balan aad lahayd oo kale inaad maaragtay ay fiican tahay goor hore haddaad tagtid. haddii kale hadhowto xilligii dadku ay soo badanayaan oo waqtigaagii uu kuu ciriiri kugu noqdo. marka aad bay u fiican tahay intuu qofku goor hore kaco salaadiisa tukado howlihiisa qabsado noloshiisa uu raacdo aad iyo aad bay u qurux badan tahay. tan saddexaad waxay tahay walaal inaad ma aragtay biyo badan qofku cabo jirkiisa. biyaha badani maxay jirka u tarayaan? qofku markuu biyaha badan cabo energy badan buu yeelanayaa, dhiiggiisa shaqaynayaa, energy badan buu helayaa. yacni wax walba qashin ayaa ka dhaqmanaya qofka jirkiisa. laakiin haddaadan biyo cabin oo biyuhu kugu yar yihiin waxa weeye qof daalan oo meel iska fadhiya oo maaragtay aad marsid inuu jirkiisa dhanka waxaad dareemaysaa qof maaragtay tamar aan lahayn. marka biyo inaad cabtid aad iyo aad bay u muhiim tahay. taasna ku darso caadooyinkaaga. tan afraad waxay tahay dad baa dabeecad waxay u leeyihiin ama caado u leeyihiin hadday cunto karsanayaan inay markaas ay saaraan yacni isla sugaan hadhow markay cuntada dhameeyaan inay waxay jecel yihiin dadku inay gadaal wax ka nadiifiyaan. marka waxaa lagu leeyahay cuntadaadii adoo karsanaysid weelasha waaweyn oo kale disuuda iyo shayada waaweyn oo maaragtay wax ku karisoo kale iska sug hadhowto dhaqo. laakiin intaa kajada ku jirtid ee cuntada jarjaranaysid iyo alaabtii yaryaradeed wax ku samaysatay iska nadiifi kajada. weelasha yaryara iska dhaq si hadhowto markaad cuntada waxaa saas yacni ay saas ay u fiican tahay inaad taa iska kala yaraysid. waxay tahay hadhow markaa cuntada cuntid
qofkii markuu cunto cuno uu daalayaa meel buu rabaa inuu iska fadhiisto waa ogtihiin especially dadku markay sooman yihiin waqti meel baa ku dhacaysaa you don't want it inaad kacdid oo wax qabsatid oo halkaasaad maaragtay maadaama aad tahay qof maanta oo dhan soo gaajaysanaa halkaasaad iskaga dhacaysaa marka walaalayaal aad bay muhiim u tahay inta yaree aad hawsha wadatid iska kala fudfudee hawsha iska fududee tan kale maaragtay shanaad waxay tahay inaad isku day inaad 10% hadda si fiican dhegeystayaa I know inaan inagoo dhan ku xunnahay arrinkaas waa normal bini'aadanka dhan baa iska saasa dad wanaagsan way jiraan maasha allah arrinkaas sameeya oo iisi u tahay dad waxaa jira ku adag tahay haddii aad lacag qaadatid ama aad shaqaysto jeeg soo qaadatid yani haddaad lacag si kale ku soo gasho ama aad tahay qof shaqaale oo jeeg waxaad isku daydaa jeegaaga ama lacagtaada 10% 10% yani 10% inaad maaragtay aad meel dhigatid oo safe garaysid isku day wax badan bay 10% kaas kugu taraysaa waa marka aad maaragtay hawlahaagii iyo waxaagii iyo gurigaagii iyo bilashaadii aad maaraysid weeye isku day inaad 10% aad meel wax dhigatid isbar xataa haddaadan awoodin maaragtay kugu adag tahay in ka yar isku day si aad usoo gaadhid hadhow 10%-ga ah waayo wax weyn bay kuu taraysaa at the end of the maaragtay waqtiga dabeecad fiican bayna kuu noqonaysaa caado fiican bay kuu noqonaysaa marka isbartid tan lixaad waxay tahay walaalo inaadan maaragtay hawsha hal mar isla wada qaban dad waxaa jira kanuu qabanaya waa multitasking 100 shaqo isku furaya okay kitadii hawl baa ka socota fadhiga hawl baa ka socota waad ordaysaa qololkii baa soo hagaajinaysaa waxaa laga yaabaa inta halkaa ku jirta yani dharkii baa halkan soo baxaynaysaa 100 hawl baa isku wadaa take it easy naftaada maaragtay u nax waxaa laga yaabaa waqti dheer bay kugu qaadanaysaa sidii hadda kan cuntadan ka hadlayno kale cuntada waa ka gaar weeye because cuntadii markaad hadhow cuntada cunti ma soo kici kartid oo waa daalaysaa laakiin tan waxaa weeye 100 hawl ha isku furin hawshii walba waqtigeeda qabo hawl walba aad rabtid inaad qabatid gaar u qabo si degdeg aad uga soo baxaysaa waadna dhammaynaysaa si degdeg aad u dhammaynaysaa iyadina waa waxbaa kuu qabsamaya kii kale aad dhammee kii kale aad sidaa kusoo wad naftaadiina maadan ma xiijinaysid ma daalinaysid adigii nafta kaama dhacayso waxna waad qabsatay waxaa laga yaabaa 100 shay markaa isku soo furfurtid waxaa laga yaabaa inaadan dhammaynin aad nacdidba aad tiraahday shaqadan beri baan qabanaya haddana halkiibaad aad ka maaragtay kuugu soo maaragtay wixii oo dhan kuu yeelan oo ka sugayaan marka isku day inaad shaqo walbaba gaarkeeda u qabatid timekeeda u qabatid aad dhamaysid tan kale sidaas tan kale waxay tahay walaalayaal arrinka toddobaad inaan rabo inaan la shargayo maanta isku day inaad maalintii at least 2 page 3 page yaa inaad akhridid buug kitaab xadiis wax kale oo akhriso muhiim ku ah markaan leenahay wax akhriso maalintii 2 page at least few pages waxa weeye adiga ayaa maskaxdaada ku bacaysa waxaad noqonaysaa qof adduunka ka warhaya waxaad noqonaysaa qof maaragtay maskaxdiisu si fiican u shaqaynayso maskaxdii yacni intay ku daxaloobi lahayd waxa weeye ka shaqaysay maskaxdaada si ay maaragtay maasha allah hawsheeda si fiican uga qabsato waxaa la yidhi qofba qofku ka maaragtay akhris badan yahay buu wax badan ka og yahay marka isku day inaad at least maalintii haddaad xataa quraan akhrisatid waxaad noqonaysaa maasha allah every day qof ajar weyn usoo hoyday oo caafimaad baad ka helaysaa haddaad xadiis akhrisatidna cilmi baad kala kulmaysaa haddaad mid maadi akhrisatidna dee knowledge kale iyo cilmi kale aad iyadana ka faa'iidaysaa oo noloshaadii ku saabsan oo aad u baahan tahay marka isku wad iyagoo dhan
sideedaad waxay tahay walaalayaal inaad maaragtay diyaar garowdid, isdiyaar garee. marka maxaan ka wadnaa markaan leenahay isdiyaar garee? hawl baa rabtaa beri inaad qabsatid, caawo kala sii qabso hawsha. caruur baa iskuulku aadaysa berito, caawa usii diyaari buugtoodii meel ku ogow, yani boorsadooda buugta ugu sii gor, ayaga kaale ku gura, la dheh teamwork isla sameeya. caruurtaada dharkooda sii diyaarso, iyaga waxaad u sheeg bar inay hameenkii hawshadii meel sii dhigtaan oo dharkooda meel sii dhigtaan, boorsadoodii meel ku ogiin, kabahoodii waxoodii oo dhan. adigii intaad sii diyaarin kartid adiguna awoodaada la diyaari caruurtaada si ay subaxii u noqonin kaba soo qaad reerkii ballaaran oo kale. qofka hooyadu way wareeraysaa, intaasoo ciyaal bay rabtaa inay maareyso subaxii. kan hebel baa u baahan iskaalso, hebel baa shaati u baahan, hebel baa buuggiisii meel la dhiga la waayey, boorsadiisii meel laguma oga, funaanadii. adiga dhan qalalaasa kugu dhacaya, waad wareereysaa. marka si hawshaasi kaaga kala fududaato walaalayaal, waa inaan ku dadaalnaa inaan hameenka maalintaas subaxaas yani hameenkeedii oo yani hameenka ka horeeya inaad wax sii diyaarsatid si aad berito wax walba diyaar subaxii kugu noqoto. easy bay ku noqonaysaa, believe me. taas yani rumaysta way shaqaynaysaa haddaad waxa dhan iska sii diyaarisid, insha allah biidn illaah guul weyn baad kala kulmaysaa. ta sagaalaad waxay tahay adeegu waa wax aada u muhiim ah, waana waxyaalaha dadka lacagta ka dhameeya. ogaada haddaadan adeega aadan listi samaysanin ama balaan aadan adeegaaga u samaysanin oo aadan meel ku qoranin wixii aada u baahan tahay. innaga badanaaba dadkeena waxaa lacagta ka dhameeya oo aynu ma aragtay xitaa wax loo seef gareyn waayo ama loo dhigan waayo. waxa weeye dukaankii baa tegaysaa, abkay shay waxaad soo buuxsanaysaa ma aragtay gaadhigii cuntada lagu gurayay. uma baahnid gurigu kaaga horeeya already waa yaalan, laakiin waxaad leedahay okay maybe waan u baahanahay kan, ma hubo inuu yaaliyo in kale, shaki baa kaa gelaya. markaasaad waxaad soo qaadanaysaa dhowr xabo. hadda dhowrka xabo ogow lacagtoodii baa kugu maqan, aday kaa go-antahay, budgetkaagii ayaa kaa maqan, lacagtaadii ayaa kaa maqan. aad meesha dhigan lahayd remember 10%gii aan lahaa meel safe gareysta, haddaad halkan aad ku isbani garaysid, halkan ku bixisid oo mala yacni aad ugu bixisid yani waxaadan u baahdan aada gadatid, ogow way kaa go-naanaysaa. marka walaalayaal hal iska daayo alaabta aan la baahnayn in la soo gato. waxa aad u baahan tahay intaad sii qoratid intaadan bixin. hadda telefoon baaba jira maasha allah oo notebooks leh, sii qoro adeegaaga, sii qoro kijada dhex tag, musqusho waxaa ka maqan dhex tag, guriga qolalka waxaa ka maqan dhex tag, wax walbaba sii qoro si ay hadhowto markaad dukaankii tagtid aad wax walba listigii ay ku maasha allah listigaagii dhammaad la soo baxaysaa. waa wixii aad u baahnayd, waxaadan u baahnayn iskama soo qaadanaysid. markaasoo kale lacag badan way kuu safe garaysaa, believe me. taas qof walba dhibaatadaas bay haysataa. marka insha allah haddaad ku fiican tahay good job, bravo. haddii mataqaanaa aadan ku fiicnayna halkaa kasii wad insha allah biidn illaah, oo maaragtay qaado hadalkan insha allah. tan ugu dambeysa badnada liist insha allah waxa weeye inaad exercise samaysid, jimicsi. qofka waa inuu isbaraa inuu jimicsi sameeyo. jimicsigu aad bay u muhiim tahay, believe me. taas iweydiiyani qofku markuu jimicsi sameeyo maalintii isla dhaqaajiyo, haddaad awoodid subaxii markay caruurtu kaa kala tagaan, haddaad hooyo tahay iyo haddaad aabbo tahayba, qofku inuu maalintii xaafadda dhexdeeda xataa hadduunan jiim aadaynin waa inuu qofku soo lugeeya maalintii, hawe fresh ah soo qaado, xaafadaada dhexdeeda kusoo jiire. qur-aankaaga intaad dhagaha gashatay telefoonkaaga dhowr jiiro soo gal. jirkaagii baa wuxuu noqonayaa, dhiiggii baa ku kala furfurmaya, lafii meelii ku xanuunaya, gacmii, jirkaagii dhammaan wuxuu noqonayaa jir shaqaynaya. oo maaragtay gaariga sida maaragtay markuu saliidda oilka maaragtay haddii gaari meesha layska dhigo iska qabooba dee bir iyo wixii dhan waa isku dexlaysanayaan, waad ka fadhiisanayaan.
laakiin markii aad kululeysid aad socotid jirkaagii waa sidaas oo kale jidhkii baa shaqaynaya xubnihii baa shaqaynaya qof shaqo walbaba